waxaan rabaa inaan halkan uga hambaliyeeyo walaalkay maxamed maan farmaajo oo noqonaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan leeyahay hambalyo dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay la garab istaago madaxweynaha cusub dalkuna hore u socdo dimuqraadiyadduna hore u socoto Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato wadajir bay laba gamcood wax ku qaban karaan anis weeshano walaalayaal aan wada jirno way walaalayaal waata magaalada xamar
Gordran sugayna la soo gaaray